بسم الله الرحمن الرحيم aniga oo ah Faysal Umar Madar oo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada shirweynaha afraad ee xusbiga kulmiye waxaan jecelahay inaan halkan ka wargeliyo dhammaan ergooyinka xusbiga kulmiye uga qayb galaya shirweynaha afraad ee xusbiga in maalinta ay bishu tahay 12ka September 2020 maalinta Sabtida ah ay ka bilaabmayso diiwaangelintii ergooyinkaasi xarunta dhexe xusbiga kulmiye waxaan jecelahay in aan ku dhiirigeliyo ergooyinku inay waqtiga ilaaliyaan ergooyinkaas oo dal iyo dibadba ka iman doona insha Allah waxaan si gaar ah u calaamadinayaa ergooyinka ka imanaya labada gobol ee Sool iyo Sanaag annaga oo ka duulayna inta ay u jiraan ama ka fogaanshaha ay ka fog yihiin caasimadda waxaan kula talinaynaa ama ku wargelinaynaa in ay diiwaangelintani soconayso ilaa 30 bisha ergooyinkaasi waxay xaq u leeyihiin in ay ugu fududaato ka qaybgalka shirku ay iman karaan iyagu dhamaadka bisha xor bayna u yihiin xilligii ay yimaadaanba waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa in ay ilaaliyaan waqtiga iyo habsami socodka diiwaangelinta waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ah Faysal Umar Madar oo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada shirweynaha afraad ee xusbiga kulmiye waxaan jecelahay inaan halkan ka wargeliyo dhammaan ergooyinka xusbiga kulmiye uga qayb galaya shirweynaha afraad ee xusbiga in maalinta ay bishu tahay 12ka September 2020 maalinta Sabtida ah ay ka bilaabmayso diiwaangelintii ergooyinkaasi xarunta dhexe xusbiga kulmiye waxaan jecelahay in aan ku dhiirigeliyo ergooyinku inay waqtiga ilaaliyaan ergooyinkaas oo dal iyo dibadba ka iman doona insha Allah waxaan si gaar ah u calaamadinayaa ergooyinka ka imanaya labada gobol ee Sool iyo Sanaag annaga oo ka duulayna inta ay u jiraan ama ka fogaanshaha ay ka fog yihiin caasimadda waxaan kula talinaynaa ama ku wargelinaynaa in ay diiwaangelintani soconayso ilaa 30 bisha ergooyinkaasi waxay xaq u leeyihiin in ay ugu fududaato ka qaybgalka shirku ay iman karaan iyagu dhamaadka bisha xor bayna u yihiin xilligii ay yimaadaanba waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa in ay ilaaliyaan waqtiga iyo habsami socodka diiwaangelinta waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ah Faysal Umar Madar oo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada shirweynaha afraad ee xusbiga kulmiye waxaan jecelahay inaan halkan ka wargeliyo dhammaan ergooyinka xusbiga kulmiye uga qayb galaya shirweynaha afraad ee xusbiga in maalinta ay bishu tahay 12ka September 2020 maalinta Sabtida ah ay ka bilaabmayso diiwaangelintii ergooyinkaasi xarunta dhexe xusbiga kulmiye waxaan jecelahay in aan ku dhiirigeliyo ergooyinku inay waqtiga ilaaliyaan ergooyinkaas oo dal iyo dibadba ka iman doona insha Allah waxaan si gaar ah u calaamadinayaa ergooyinka ka imanaya labada gobol ee Sool iyo Sanaag annaga oo ka duulayna inta ay u jiraan ama ka fogaanshaha ay ka fog yihiin caasimadda waxaan kula talinaynaa ama ku wargelinaynaa in ay diiwaangelintani soconayso ilaa 30 bisha ergooyinkaasi waxay xaq u leeyihiin in ay ugu fududaato ka qaybgalka shirku ay iman karaan iyagu dhamaadka bisha xor bayna u yihiin xilligii ay yimaadaanba waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa in ay ilaaliyaan waqtiga iyo habsami socodka diiwaangelinta waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ah Faysal Umar Madar oo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada shirweynaha afraad ee xusbiga kulmiye waxaan jecelahay inaan halkan ka wargeliyo dhammaan ergooyinka xusbiga kulmiye uga qayb galaya shirweynaha afraad ee xusbiga in maalinta ay bishu tahay 12ka September 2020 maalinta Sabtida ah ay ka bilaabmayso diiwaangelintii ergooyinkaasi xarunta dhexe xusbiga kulmiye waxaan jecelahay in aan ku dhiirigeliyo ergooyinku inay waqtiga ilaaliyaan ergooyinkaas oo dal iyo dibadba ka iman doona insha Allah waxaan si gaar ah u calaamadinayaa ergooyinka ka imanaya labada gobol ee Sool iyo Sanaag annaga oo ka duulayna inta ay u jiraan ama ka fogaanshaha ay ka fog yihiin caasimadda waxaan kula talinaynaa ama ku wargelinaynaa in ay diiwaangelintani soconayso
ilaa 30 bisha ergooyinkaasi waxay xaq u leeyihiin in ay si ay ugu fududaato ka qaybgalka shirku ay iman karaan iyagu dhammaadka bisha xor bayna u yihiin xilligii ay yimaadaanba waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa inay ilaaliyaan wakhtiga iyo habsami socodka diiwaangelinta waa mahadsantihiin bismi illaahi raxmaan raxiim aniga oo ah faysal cumar madar oo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada shirweynaha afraad ee xusbiga kulmiye waxaan jecelahay inaan halkan ka wargeliyo dhammaan ergooyinka xusbiga kulmiye uga qaybgelaya shirweynaha afraad ee xusbiga in maalinta ay bishu tahay 12 Sebtembar 2020 maalinta sabtida ah ay ka bilaabmayso diiwaangelintii ergooyinkaasi xarunta dhexe xusbiga kulmiye waxaan jecelahay in aan ku dhiirigeliyo ergooyinku inay waqtiga ilaaliyaan ergooyinkaasoo dal iyo dibadba ka iman doona insha Allah waxaan si gaar ah u calaamadinayaa ergooyinka ka imanaya labada gobol ee Sool iyo Sanaag annaga oo ka duulayna inta ay u jiraan ama ka fogaanshaha ay ka fog yihiin caasimadda waxaan kula talinaynaa ama ku wargelinaynaa in ay diiwaangelintani soconayso ilaa 30 bisha ergooyinkaasi waxay xaq u leeyihiin in ay si ay ugu fududaato ka qaybgalka shirku ay iman karaan iyagu dhammaadka bisha xor bayna u yihiin xilligii ay yimaadaanba waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa inay ilaaliyaan wakhtiga iyo habsami socodka diiwaangelinta waa mahadsantihiin bismi illaahi raxmaan raxiim aniga oo ah faysal cumar madar oo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada shirweynaha afraad ee xusbiga kulmiye waxaan jecelahay inaan halkan ka wargeliyo dhammaan ergooyinka xusbiga kulmiye uga qaybgelaya shirweynaha afraad ee xusbiga in maalinta ay bishu tahay 12 Sebtembar 2020 maalinta sabtida ah ay ka bilaabmayso diiwaangelintii ergooyinkaasi xarunta dhexe xusbiga kulmiye waxaan jecelahay in aan ku dhiirigeliyo ergooyinku inay waqtiga ilaaliyaan ergooyinkaasoo dal iyo dibadba ka iman doona insha Allah waxaan si gaar ah u calaamadinayaa ergooyinka ka imanaya labada gobol ee Sool iyo Sanaag annaga oo ka duulayna inta ay u jiraan ama ka fogaanshaha ay ka fog yihiin caasimadda waxaan kula talinaynaa ama ku wargelinaynaa in ay diiwaangelintani soconayso ilaa 30 bisha ergooyinkaasi waxay xaq u leeyihiin in ay si ay ugu fududaato ka qaybgalka shirku ay iman karaan iyagu dhammaadka bisha xor bayna u yihiin xilligii ay yimaadaanba waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa inay ilaaliyaan wakhtiga iyo habsami socodka diiwaangelinta waa mahadsantihiin bismi illaahi raxmaan raxiim aniga oo ah faysal cumar madar oo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada shirweynaha afraad ee xusbiga kulmiye waxaan jecelahay inaan halkan ka wargeliyo dhammaan ergooyinka xusbiga kulmiye uga qaybgelaya shirweynaha afraad ee xusbiga in maalinta ay bishu tahay 12 Sebtembar 2020 maalinta sabtida ah ay ka bilaabmayso diiwaangelintii ergooyinkaasi xarunta dhexe xusbiga kulmiye waxaan jecelahay in aan ku dhiirigeliyo ergooyinku inay waqtiga ilaaliyaan ergooyinkaasoo dal iyo dibadba ka iman doona insha Allah waxaan si gaar ah u calaamadinayaa ergooyinka ka imanaya labada gobol ee Sool iyo Sanaag annaga oo ka duulayna inta ay u jiraan ama ka fogaanshaha ay ka fog yihiin caasimadda waxaan kula talinaynaa ama ku wargelinaynaa in ay diiwaangelintani soconayso ilaa 30 bisha ergooyinkaasi waxay xaq u leeyihiin in ay si ay ugu fududaato ka qaybgalka shirku ay iman karaan iyagu dhammaadka bisha xor bayna u yihiin xilligii ay yimaadaanba waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa inay ilaaliyaan wakhtiga iyo habsami socodka diiwaangelinta waa mahadsantihiin bismi illaahi raxmaan raxiim aniga oo ah faysal cumar madar oo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada shirweynaha afraad ee xusbiga kulmiye waxaan jecelahay inaan halkan ka wargeliyo dhammaan ergooyinka xusbiga kulmiye uga qaybgelaya shirweynaha afraad ee xusbiga in maalinta ay bishu tahay 12 Sebtembar 2020 maalinta sabtida ah ay ka bilaabmayso diiwaangelintii ergooyinkaasi xarunta dhexe xusbiga kulmiye waxaan jecelahay in aan ku dhiirigeliyo ergooyinku inay waqtiga ilaaliyaan
ergooyinkaasoo dal iyo dibadba ka iman doona insha allah. waxaan si gaara u calaamadinayaa ergooyinka ka imanaya labada gobol ee sool iyo sanaag, annaga oo ka duulayna inta ay u jiraan ama ka fogaanshaha ay ka fog yihiin caasimadda. waxaanu kula talinaynaa ama ku wargelinaynaa in ay diiwaangelintani soconayso ilaa 30 bisha. ergooyinkaasi waxay xaq u leeyihiin in ay ugu fududaato ka qaybgalka shirku ay iman karaan iyagu dhammaadka bisha. xor bayna u yihiin xilligii ay yimaadaanba. waad mahadsantihiin. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa in ay ilaaliyaan wakhtiga iyo habsami socodka diiwaangelinta. waa mahadsantihiin. bismi illaahi raxmaan raxiim. aniga oo ah Faysal Cumar Madar oo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada shirweynaha afraad ee xusbiga kulmiye, waxaan jecelahay inaan halkan ka wargeliyo dhammaan ergooyinka xusbiga kulmiye uga qaybgelaya shirweynaha afraad ee xusbiga in maalinta ay bishu tahay 12 Sebtembar 2020 maalinta Sabtida ah ay ka bilaabmayso diiwaangelintii ergooyinkaasi xarunta dhexe xusbiga kulmiye. waxaan jecelahay in aan ku dhiirigeliyo ergooyinku inay wakhtiga ilaaliyaan. ergooyinkaasoo dal iyo dibadba ka iman doona insha allah. waxaan si gaara u calaamadinayaa ergooyinka ka imanaya labada gobol ee sool iyo sanaag, annaga oo ka duulayna inta ay u jiraan ama ka fogaanshaha ay ka fog yihiin caasimadda. waxaanu kula talinaynaa ama ku wargelinaynaa in ay diiwaangelintani soconayso ilaa 30 bisha. ergooyinkaasi waxay xaq u leeyihiin in ay ugu fududaato ka qaybgalka shirku ay iman karaan iyagu dhammaadka bisha. xor bayna u yihiin xilligii ay yimaadaanba. waad mahadsantihiin. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa in ay ilaaliyaan wakhtiga iyo habsami socodka diiwaangelinta. waa mahadsantihiin.